Halkani waa Gabiley waa magaalo ay ka muuqato diyaargarowga iyo weynaynta xuska maalinta qaran ee 18 May oo ay saacado kooban ka hadhsan yihiin oo qarankani Somaliland uu koobiyo 30 jirsaday saaka subax hore ilaa gabaldhac waxay bulshada ku dhaqan xaafadda 18 May ee degmada Gabiley iskugu soo baxeen barxad loo asteeyay xaafadani si ay u muujiyaan taageerada iyo dabaaldegga weynaynta xuska maalinta qaran ee 18 May. sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay xaafadani 18 May agab hidde iyo dhaqan oo kala ahaa dhismaha aqal Soomaali laba daryaala ah. waxaa sidoo kale ardaaga aqal Soomaaligani lagu diyaariyay haween qabanayay dhammaanba hawlihii dhaqankeena ee shaqada waxaana indhaha iyagu qabanayeen shaqada baaxadda leh ee hayaan haweenka ku sugan madashani loo asteeyay dabaaldegga. ciyaarista hidaha iyo dhaqanka ayaa sidoo kale qayb weyn ka ahayd qurxinta madashani. Marwar Roode Cabdiqaadir gudoomiyaha xaafadda 18 May ayaa agaasinka iyo qabanqaabada doorka ugu weyn ku lahayd waxaanay muujisay dadaal iyo howlkarnimo waxaana xusid mudan in xaafadani 18 May ay ka duwaneyd xaafadaha kale ee degmada Gabiley. madal si bilan oo meeqaamkeedu sarreeyo loo soo agaasimay ayaa waxaa soo booqday wasiirka wasaaradda beeraha, wasiir ku-xigeenka waxbarashada, maayarka degmada, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, guddida qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May, badhasaabka gobolka, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada. waxaana soo dhaweysay Marwar Roode Cabdiqaadir oo faahfaahisay cunto dhaqameed ay haweenka xaafadda 18 May iyo gudoomiyaha xaafaddaasi ay ku soo riyeeyeen madaxda qaranka ee soo kormeeray waxaana hadalladeedii ka mid ahaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa marka hore mahadle mar labaadna waxaan u mahadcelinayaa madaxdayda qaranka waxaan ku soo dhaweynayaa xaafadda 18 May oo sidata magacii maalinta xuska qaran ee aynu xusayno. waxaan leeyahay ku soo dhawaada xaafadda 18 May. waxaanu soo diyaarinay guriga arkaysaan ee hidiyo dhaqankiya waxaanu ku soo diyaarinay cuntadii hidiyo dhaqanka oo ah dalagii ka baxay gobolka cagaaran wax wal oo markaasi ka baxayay ayaanu diyaarsanay. waxay inoo yaala galeydii oo laga sameeyay 3 nooc shuuradii qarmacdii iyo faracadii. waxay inoo yaala garowgii, waxay inoo yaala cambaaburkii, waxay inoo yaala xooxdii caadiga ahayd ee canjeeradii oo ka samaysan haruurkii, waxay inoo yaala caanihii geela, caanihii dhaydii looda, garoorkii dhaydii wax walba way inoo yaalaan. waxaan leeyahay ku soo dhawaada hidiyo dhaqanka. waxaanu rajaynaynaa Gabiley iyo gobolada Somaliland oo dhan xaafadda 18 May magaca ay sidata darteed inay u sarreyn doonto. maayarka degmada Gabiley Maxamed Cumar Cabdi iyo badhasaabka gobolka ayaa Marwar Roode Cabdiqaadir gudoomiyaha xaafadda 18 May ku bogaadiyay shaqada wanaagsan ee baaxadda leh ay qabatay. sidoo kale waxay ka gudoomeen sooriyadani ay ku maamustay waxaanay xuseen in ay xaafadda 18 May tahay xaafaddii ugu horeysay ee sooriyo loogu sameeyo. dhammaan shacabweynaha xaafadda 18 May iyo maamulkooda dadweynaha kala duwan madaxda yadan halkan socota oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Somaliland waanu kormeer ku nimi damaashaadka iyo dabaaldegga hordhaca ah ee dadweynaha reer Gabiley xaafadaha kala duwan iyo guud ahaan dadweynaha reer Gabiley ay ugu diyaar garoobayaan maalinta saacaduhu ay nooga hadhay ee qaaliga ah ee 18 May. runtii aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina wadaniyada leh qiirada leh aan ugu soo dhaweyseen ee aan ugu marti qaadeen annagoo ku sugan aqal labardaryaala ah oo lagu diyaariyey xafiiska 18 May xaafadda 18 May. runtii soo dhaweyntiina waa idinka mahadcelinaynaa mudane wasiir. xaafaddan aynu joogno waa mid ka mid ah 4 xaafadood ee magaalada. damaashaad hordhaca bay halkan ku sii sameeyeen gudoomiyaha xaafadda Roode Cabdiqaadir iyo dadweynaheega iyadoo kaashanaysa. waa uga mahadcelinaynaa runtii aad iyo aadna ugu mahadsan yihiin. waxaan filayaa waa maadaama xaafadda 18 May la yidhaahdo sidaasaan ugu dareemaynaa inaad runtii diyaargarow aad u wanaagsan u samaynaysaan inaad hidiyo dhaqankii nagu soo dhaweysaan oo aad ku xusasaan maalintii weyneeda qaranka. aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa
dadweynaha reer Gabiley ee aan daalayn ee runtii farxadda iyo damaashaadka meel walba ku bandhigayana oo ugu mahad celinaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa saacadaha inooga hadhay maalintaa qiimaha leh qarankeena ku weyn inuu nabad iyo caafimaad inagu gaarsiiyo aad iyo aadna waa idinka mahad celinaynaa runtii tacabkaasi dee berrina waxaan rajaynaynaa inaynu wacdaro weyn aynu dhigi doonno ugu dambeyn waxaan jecelahay halkan inaannu farriin u dirno dhammaan dadweynaha reer Gabiley annagoo tixgeliyayna runtii shacabkayaga qiimaha leh ee ay ku weyn tahay maalintan weyn ee jamhuuriyadda Somaliland ah maalinta ay xornimada dib ula soo noqotay 18 May ilaahay waxaanu weydiisanaynaa si ammaan ah inuu inoogu dhammeeyo waxaanu idinka codsanaynaa sida qiimaha leh ee aad ugu diyaar garowdeen runtii inaad ugu diyaar ahaataan aad ilaashataan nabadgelyadiinna waxaanu idinka codsanaynaa berri toole waa maalin weyn isu soo bax ballaadhan baynu samaynaynaa wakhtigan aynu ku sugannahayna waa wakhti ay cadceeddu aad iyo aad u kulashahay sidaa daraaddeed si aynu waayeelka ugu tudhno aynu dadkeenna ugu naxariisanno shacabkayaga sharafta le aanay dhibaato u soo gaadhin waxaannu aad iyo aad idinka codsanaynaa inaynu hore u diyaar garowno oo salaadda subax markaynu ka baxnaba goobta laydiin diyaariyey ee ah waddadaa weyn gaar ahaan bookh ilaa iyo hoteelka Cali Xawaash inta u dhaxaysa inaad diyaar ku ahaataan si aynu meelaha 9 subaxnimada damaashaadka iyo xafladaha iyo waxaba u dhamaysanno oo aanay dhibaatada kulaylku idin soo gaadhin runtii arrintaas aanu halkan farriin idinka diranaa waana idinka mahad celinaynaa runtii qiimaha faraha badan leh maalinta qaranka ee waajibka laynagu leeyahay geliseen runtii waxaa kolay waa habeen weyn waa caawa 18 May xaafaddii baynu taagannahay 18 May mudane wasiir ku soo dhawow runtii xaafadda 18 May waa xaafadda iyo magaca iyo xuskuba isleeyihiin waxaa dadweynaha sharafta leh ee xaafaddan ku dhaqan aan uga mahad celinaya runtii say isu soo abaabuleen xilligay u taageen halkaa iyadoo waqtigii aan la gaadhin ay si xafladaynayaan ay runtii sugla yihiin waqtigii lagu talagalay taasoo muujinaysa dareen dheeraad ah oo shacabkan ku jira si gaar waxaan ugu mahad celinayaa runtii gudoomiyaha xaafadda Rooda oo soo diyaarisay runtii gurigan dhaqankii asalka ahaa aynu ka soo jeednay oo si quruxda badan loo dhisay isma lahayn anugu hararka iyo dhigta iyo loolka iyo aloolkaasba waa la heli karaa xilligan ama cid samayn kartaa joogta laakiin weli waxay muujinaysaa taas in dad si nool yihiin oo damiirkeenu runtii si nool yahay oo dhaqankeena aan sii haysanno guryahan haddii si caalami loo eego runtii oo loo cilmiyeeyo aqoon badan baa ku duugan oo marka juqraafiga la sheegayo ama farta Soomaaliga la qorayay waxyaabo laga qaatay runtii marka space-ka laga hadlayo aqal Soomaaliga kamid ah marka dhulka laga hadlayo waxyaabo badan oo muhiim ah ayuu aqalkan ku fadhiyaa qodob dhexaadkaas wuxuu tilmaamayaa runtii miisaanka guriga uu hayo iyo culayska sida uu leeyahay iyo sida balansiga uu yahay cid walba dhisi kartana maaha dad baa Ilaahay ku galaday inay dhisaan uga mahad celinaya runtii ciddii tacabka gelisay halkan waxaa kaaga muuqda runtii adoo wasiirka beeraha nasiib baad u yeelatay in wixii dalagii dal ka soo go'ay gaar ahaan gobolka cagaaran wixii ka soo go'ay ee ka soo baxay kuma jiro wax dibadda laga keenay hadday caana tahay hadday wixii dhirteeni tahay wix allaah wixii halkaas shay laga tagayna ma jiro dhammaantood waa wada cunana cashadaasna adiga ay wasiir si gaar ah lagu casumay oo maadaama wasiirka beeraha inaad aragtid hadhow dalalka kalena ee Afrikana aad ugu faantid reer Soomaaliland inta kalena aad u sheegtid in wax la beerto oo wax la soo saaro waxaad Gabiley ku soo aragtay runtii waa wax cashar ka noqon doona runtii wasaaradda daraasad badanna ka qayb qaadan doona runtii cuntadaas iyo waxa isku runtii Ilaahay nimcadaas uu insiiyay waa uga mahad celinaya runtii caasimada gaarka ah dhammaantii waxaan leeyahay maadaama waqtiga sugayo amin aan taagannahay wasiirka kelmad mahad celinaya idin oranaya wasiirka xigeenka waxbarashada Somaliland iyo wasiirka beeraha ayaa sidoo kale bogaadiyay gudoomiyaha xaafadda 18 May waxaana uu wasiirka beeruhu dul istaagay in la weyneeyo isticmaalka cunto dhaqameedka waxaana hadaladiisii kamid ahaa xaafad Gabiley iyo xaafadda 18 May aad bay u mahadsan yihiin aadna waanu salaamanaa احترام وين وين موجيين لا احترامين
kolkaa waxa weeyaan inagu kolkaynu nahay reer gabiley halgankiina waynu ku sutnay oo kow halku ka bilaabmay ilaa imikana waynu haynaa weli dowladnimadii xaggeena waynaynu ka xajinaynaa insha allah wax badan waynu hagaagi doonaan kolkaa waxa weeyaan ceeshal waddan horta wax ka wanaagsan ma jiro waxa weeyaan inanka ceeshal waddan ku koriyo ka beriska ku koraa isku xoog maaha kolkaa waxa weeyaan ceeshal waddankeenna aad haynu beeranno haynu taxajinno haynu cunno oo haynu isticmaalno laakiin maga wax dhammaatay in xoolaha loo dhigo oo dhambacaani lagu soo bediso beriis iyo biyo kulul yaa lagu soo bedishaa kolkaa waxa weeye cuntadeenna haynu ku noqonno maalintaas 18 Mayna aad bay noogu weyn tahay waa inaynu weynaa berito oo aynu la tartannaa magaalooyinka kale ee waaweyn ee naga bableeshka badan gebel waa inaan la tartantaa berito ole khaasatan waxaan sii salaamayaa xaafaddan iminka aan joogo ee nasiibka u yeelatay magaca aad qiimaha u leh ee somalilan meel kastay joogta habeenka caawa ay laga xusayo ee looga taagan yahay nasiibka u yeelatay waxaan leeyahay hambalyo 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 intaa haddaan ka sii gudbo waxaan u mahad celinayaa dumarka soo diyaariyey aqalkan aanu hoos taagannahay ee soo diyaariyey cuntadan hiddaheenna iyo dhaqankeenniya waxaan idinkana idin leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro kolley guryihiinni baa ka timaadeen carruurihiinni baa ka timaadeen ilaa saaka waxaan filayaa inaad taagnaydeynun ama wax karin ama maxaa idin calama qaybin marka waxa weeye waa dalkeennii waa dadkeennii waa magaaladeennii intaba waynu u dhaban adaygaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan filayaa inaynu kaba horreynaba 18 May shaaricaan hadda soo maray sidii 18 May oo kale aynu u maray